asxaabta habada nagala xiriirtay waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha badan ku soo qaadan doona waxa qayb ka noqon doona John Henderson oo iska lumiya hal fursad oo qaali ahayd waa kuma fursadaasi barnaamijka ayaan ku eegi doonaa Arsenal oo heshay wado ka caawinaysa ama ka caawin karta inay heshiis cusub ka saxiixato xidiga Pierre-Emerick Aubameyang wararkii ugu dambeeyay ee dhaqdhaqaaqa suuqa kala iibsiga waxyaabihii wargeysadii wakaaladaha caalamka ka diiwaan geliyeen xidigaha Haaland sidoo kale Kovacic Abraham Wijnaldum iyo Messi iyo Lautaro Martinez ayaan eegi doonaa waxaan kaloon eegi doonaa Lionel Messi oo Mohamed Salah ka caawiyay in uu xidigaasi door muuqdo ku yeeshto naadiga Liverpool haddaba waa maxay haddii uu doonay in uu mustaqbalka awoodo waa in uu sameeyaa sidii hore uu u sameyn jiray Cristiano Ronaldo Eden Hazard oo sidaas la oranayo waa kuma xidiga nasiibka ugu ahaa Real Madrid ka hor inta uu ka tagin ayaan eegi doonaa horyaalka La Liga Andre Herrera oo magacaabay 3 xidig oo ay doonayso inay kooxda Manchester United la keeno macalin Ole Gunnar Solskjaer oo boos cusub ka ciyaarsiin doona Paul Pogba waxaan kaloon eegi doonaa Manchester City oo si rasmi ah ku dhawaaqday caawiyaha Paul Pogba caawiyaha Pep Guardiola iyo sidoo kale bedelka Mikel Arteta waxaan kaloon eegi doonaa mushaarka ay qaataan Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi sidoo kale waxaan eegi doonaa sharaxaad عجائب oo laga sameeyay xidigihii Arsenal hore u soo maray labadaasi qodobo kale oo xiiso badan ayaa barnaamijka ku dhageysan doontaan waa mar kale ciyaaraha radio show baraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa lagu soo waramayaa inuu isku diyaarinayo inuu Paul Pogba ka ciyaarsiiyo boos cusub ama boos new ah 10 ayaa la leeyahay sida uu sheegayo gaar ahaan wargeys ka soo baxa dalkaas Ingiriiska macalin Ole Gunnar Solskjaer ayaa lagu soo waramayaa inuu qorsheynayo qorsho Paul Pogba kaga ciyaarsiin doono boos cusub Pogba ayaa ku soo laabtay taam ahaashaha buuxa kadib markii uu qaliin lagu sameeyay kuna jiray Ole Gunnar Solskjaer ayaana sheegaya in laacibkan uu ka ciyaarsiin doono boos cusub United ayaa ku tirsan doonta in laba boos ay si weyn ugu dagaalanto si ay ugu soo qayb gasho tartanka Champions League xilli ciyaareedkan Ole Gunnar Solskjaer ayaa haatan ku rajaweyn in uu 3 dhibcood ka dambeeyo kooxda Chelsea wargeyska The Sun ayaa sheegaya inuu Ole Gunnar Solskjaer ka soo shaqeynayo shax cusub uu doonayo inuu ciyaarsiiyo Paul Pogba iyo Bruno Fernandes asaga oo xidigaha Pogba ka caawinayo doono qadka dhexe waana sida uu sheegayo Pogba ayaa ka hor ciyaari doono hasagoona doonaya in booska cusub uu ka dhigo lambarka diishka oo ma booska kubad sameeyaha laacibka reer Faransa Paul Pogba ayaa kamid ah xidigaha ugu wanaagsan naadiga kooxda kubadda cagta Manchester United laakiin macalin Ole Gunnar Solskjaer ayaa daneynaya in xidigaasi uu ka bedelo booskii burburyaha ahaa oo u ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee Manchester United sababtoo sir ah fursad ku diiday in uu la soo saxiixdo xidiga Liverpool John Henderson ayaa mustaqbalka ka mid noqon doona mid xidigaha ugu wanaagsan markii uu xidigaasi muhiimada ka hadlay asagoona sheegay in uu ka tagayn ama ka tartamayo naadiga Liverpool ee horyaalka Premier League xidigan ayaa sanadkii 2013 fursad u siiyay in Liverpool hesho xidigaas oo asagana heshiis dheer u saxiixay waxa uu sheegay Henderson in mar walba uu jecel yahay inuu ku sii nigaado garoonka Anfield iyo kooxda kubadda cagta Liverpool John Henderson oo ah kabtanka naadiga Liverpool ayaana la sheegaya in uu fursad uu kooxo kale ku biiri karo uu haasto xiligaasi kooxda Arsenal ayaa ku kalsoon in ay xidiga fiican ee ay la
yeeshato wada hadallo aad u wanaagsan. Pierre-Emerick Aubameyang ayaa la sheegayaa in Arsenal ay danaynayso inay la samayn doonto wada hadal aad u sareeyo. Xidigan ayaa la sheegayaa in naadiga Arsenal ay aad u xiiseynayso sidii ay heshiis cusub uga saxiixan lahayd. Dhaxalka xidigan ayaa ah inuu noqdo mid aad u wanaagsan, isagoona xidigan doonaynin inuu heshiis cusub u saxiixo naadiga Arsenal. Pierre-Emerick Aubameyang ayaa la xiriirinayaa inuu isaga tagi doono naadiga Arsenal, isaga oo ay aad u xiiseynayaan kooxaha reer Spain iyo kooxaha reer England oo kala ah Barcelona, Real Madrid iyo Chelsea, kuwaasoo doonaya heshiiska xidigaasi oo Digaralis haddii uu ka tagay in uu ka mid noqdo naadiga kooxda kubadda cagta ee Barca, Real ama Chelsea midkood. waana sababta keenaysa in xidigaasi uu sheegay inuu doonayo inuu isaga tago naadiga Arsenal. Arsenal ayaa hadda la sheegayaa inay danaynayso in xidigan ay ka saxiixdo qandaraas cusub. gool dhaliyaha reer Gabon Pierre-Emerick Aubameyang ayaa ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan naadiga Arsenal, isaga oo go'aan ka gaaray si uu haatan sheegay wararka, laakiin Arsenal ayaa sameyn doonta wado walba oo ay ku jooji karto in ay xidigaasi ku joojiso. naadiga Arsenal ayaana xidigaasi la daaladhicayso inay heshiis cusub ay ka saxiixdo ayaa la leeyahay. haddii aynu ka tagno Aubameyang, warar kale oo aad u xiiso badan ayaa jira oo maanta wargeysyada ay aad u hadalhayaan. xidiga Mohamed Salah ayaa noqday xidiga ugu fiican Liverpool kadib markii la soo sheegay in uu noqday sida Lionel Messi oo kaleente. waa sida ay sheegayaan tabiyaasha hore ee xulka qaranka Masar ee bedelka ama sidoo kale sida ay u arkaan laacibka Salah ayaa la sheegayaa markii ugu soo baxay kubadda cagta. sida ay soo qorayaan bogaha dalka Masar ayaa la sheegayaa in Mohamed Salah sanadkii 2011 markii uu Salah u ciyaaray kooxda ee reer Masar ee ka ciyaarta waddankaasi Masar in uu ahayn xidiga sida heerka hadda uu taagan yahay. laacibkan ayaa la sheegayaa in inta badan uu yahay xidig u soo baxay kubadda cagta, waxaana la sheegayaa in xidigan ay ka caawiyeen Lionel Messi in laacibkan uu noqdo xidig inta badan la hadalhayo inuu noqon doono xidiga ugu wanaagsan adduunka. Mohamed Salah ayaa hadda ka mid ah xidigaha lagu tiriyo inuu yahay xidigaha ugu wanaagsan, waxaana la sheegayaa Leo Andres Messi in uu ku daydo isla markaana uu sidaasi u noqday xidiga ugu caansan magaalada Masar iyo xulka qaranka Masar iyo kooxda Liverpool. horyaalka La Liga ayaa dib loo bilaabi doonaa maalinta Khamiista ah ee haddana soo haysa. Eden Hazard ayaana door weyn ku yeelan doono ciyaarta macalinkaas kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane. macalinka kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa 3 sano ugu harsan tahay inuu naadiga Real uu sii leeliyo kadib muddo 3 bilood ah oo la ciyaari weeyay. horyaalka La Liga dalkaasi Spain ayaa waxaa la sheegayaa inuu saameyn ku yeeshtay caabuqa coronavirus kaasoo hakiyay gabi ahaanba isku socodka bulshooyinka kala duwan ee caalamka idil. Karim Benzema ayaa ah xidiga ugu fiican Real Madrid xilli ciyaareedkan, isaga oo sidoo kale xidigan uu yahay xidig soo bandhigay qaab ciyaareed aad u wanaagsan. xidiga reer Belgium ayaa dib ugu soo noqon doona ciyaarista kooxdiisa labaad kulka ee soo socda ayaa la leeyahay, waana xidiga Eden Hazard. Los Blancos ayaa aad u hadalhayaan in laacibkan uu yahay laacib inta badan soo bandhiga fursado aad u qaalisan, asaga oo xidiga lagu tilmaamay inuu yahay xidigaha ugu wanaagsan boosaska joogtada ahna ka helay kooxda Chelsea. xidigii hore kooxda Chelsea Eden Hazard ayaa ku haleelay 5 gool isaga oo 4 caawiye ka noqday tan iyo markii uu dhaliyaha u ahaa naadiga Chelsea. xidigan ayaa xilligii uu Chelsea u ciyaarayay waxa uu ahaa xidig ay inta badan ka cabsadaan weeraryahanada kaleente ka soo horjeeda. haddii aynu eegno sheekooyinka kaleente, xidigii hore kooxda Manchester United
ayaa shaaca ka qaaday in uu ku guuleysan doono Man United ee horyaalka Premier League isaga oona sidoo kale inta sheegay in kooxda kubadda cagta Manchester United ay soo bandhigtay fursado aad u qaalisan oo Gana Solskjaer uu yahay macalinka iminka ay u bagayaan taageerayaasha kooxda Shayaadiinta Cascas ama Shayaadiinul Xumuur Old Trafford uu yahay garoonka maslaxad rayada kooxda Manchester United ayaa kula guuleysan horyaalka Premier League muddo 7 sano ah asaga oo xidigaasi markii ugu dambeysay ee hatan ahayd in uu ku soo dhigo wacdaro aad u wanaagsan kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa laakiin muddooyinkii ugu dambeeyay wax horyaal ah aan ku guuleysan iyada oo aad loo hadalhayo saameynta horyaalka ay ku lahayd iyo sida ay iminka ka tahay sheekooyinka kale haddii aynu eegno waxaa la sheegayaa macallimiin kala duwan oo qaaradda Yurub ah oo soo kala hogaamisay kooxaha kala duwan John Farrell ayaa difaacay tababaraha kooxda Barcelona ee Quique Setién kaas oo walwal ka muujiyay shantii bedel ee uu la sameeyay xidigaha uu iminka ku soo bilaabay Quique Setién ayaa dhaleeceen xoogan kala kulmay halyeeyadii hore ee Barcelona sidoo kale intee xidigihii bedelka u ahaa uu u sameystay asaga oo horyaalka La Ligaha mar kale dib ula soo bilowday markii la eedeeyay xidiga kala duwanna uu sheegay Joe Farrell ayaa difaacay macalinka kooxda kubadda cagta ee Barcelona Quique Setién asaga oo sheegay in macalinkan uu yahay macalin aad u wanaagsan sidoo kale sameeyay fursado aad u wanaagsan Quique Setién ayaana ah macalinka ugu fiican ee kooxda Barca ayuu leeyahay sida kastaba ha ahaatee macalinkan ayaa inta badan la sheegaya in uu ku dhaco qaladaad aad u kala duwan kuwaas oo saameyn ku yeeshta kubadda cagta iyo